Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena oon kusoo qaadanayno nooca afaraad ee shallow foundation oo loo yaqaano cantilever ama strap footing. Waa maxay marka strap ama cantilever footing? Strap footing marka waa nooc khaas ah oo ka mid ah noocyada footingka uu leeyahay, okay? Waxaana loo isticmaalaa laba column oo leh laba footing oo kala duwan, okay? Yacni waa laba column oo 1 iyo 2 oo kala ah, footinadoduna waa separate oo waa kala soocan yihiin. Marka labadaas column oo laba footing oo kala duwan leh ayaa waxaa la isku xiraa rigid beam adag ayaa la isku xiraa. Rigid waxaa laga wadaa wax aan flexible ahayn. Rigid maxaa ka soo jeeda flexible, yacni moment iyo maxaa la dhahaye movement iyo waxaas oo dhan beam aan aqbalayn waa, okay? Marka la design gareynayo ayaaba qaabkaas loo design gareeyaa inuu rigid ahaado, okay? Rigid beamkaas marka maxaa loo yaqaanaa strap beam. Intaas inaa isla fahanaa rajeynaa. Magacyo kale uu leeyahay marka footingkan. Waxaa loo yaqaanaa cantilever footing, waxaa loo yaqaanaa a balance footing, magacan kale strapkana wuu leeyahay. Marka saddexdaas magac ba hadaa aragto waa same thing, okay? Hal shay lee waa. Strap beamka marka wuxuu transfer gareeyaa, wuxuu qaadaa ama uu gudbiyaa culays, okay? Culays ayuu qaadaa. Muxuu kaloo qaadaa moment, okay? Wuxuu kaloo qaadaa shear ayuu wuxuu u gudbinaa inward column, okay? Meeshaan hadda column aan noo yaal. Inward iyo outer column, hadda columnkan ayaa outer column la yiraahdaa. Columnka banaanka jira waa. Columnkan sida aad dareemaysid, yacni qofka xuduud uu leeyahay, dhulkaada xad uu leeyahay, okay? Meeshaan oo kale waa xadki, okay? Columnkia marka wuxuu dhacaa meesha cornerka ah, okay? Columnka markuu cornerka oo dhaco outer column aa la yiraahdaa. Columnkana markuu dhulkaada gudihiisa ku jirana maxaa la yiraahdaa inner column, okay? Columnkana marka hadda wuxuu yahay inner, okay? Columnkan waa inner. So marka muxuu ku yiri beamkan strap beamka ah waxa uu qaadaa culayska iyo momentaha iyo shearka wuxuuna u gudbinaa inner column. Columnkan ayuu u gudbinaa. Columnka marka qaybta banaanka xigta yacni dhacay. Columnkaas si guud yacni wuxuu qaadaa lagu dhahay heavier loads, culays yacni fara badan oo aad u badan uu qaadaa. Sababtu waxay tahay akhyaaray qofka markii dhul uu leeyahay adi dhulkaada waa kan ahaa, okay? Dhul kale daris kula noqon kara marka, okay? Dhul kale ayaa inta kaaga xigi karo. Dhul kale ayaa meeshan kaaga xigi karo. So marka adi waxa lagu ogol yahay hantidaada intaan inaa ku dhaqaaqdo oo hadaa hoos u qodaysid iyo hadaa korkiisa wax ka dhisanaysid, hadaa biyaanooyin kor aad dhisanaysaba dhulkaada ma ka bixi kartid. Xadkaada waa intaas. Tusaale ahaan marka column meeshan ku dhaca adiga oo columnyadaada ka mid ah, okay? Marka section ahaan marka hadaan ka dhigno section ahaan hadaa u waxayno columnkeeni waa kana tusaale ahaan. Columnkiisaan oo kale noo yahay, okay? Columnka marka hadhow muxuu kaaga baahan yahay marka dhulkaagina inta inuu yahay ka soo qaato, okay? Halkaana waa laga xigaa darisa ka xigo, okay? So marka columnkan hadhow wuxuu u baahan yahay inta hoos loo qodo in footing loo sameeyo, okay? Hoos inta la geliyo dhulka in footing loo sameeyo. So marka footingkiis maxaa la rabay saan inuu noqdo, okay? Okay? Laakiin marka la fiiriyo xaggaa soo dhex gashay marka waxa soo dhex gashay dhul islaamiyada soo dhex gashay. Waana khalad dhulka inaad soo dhex gasho, okay? Adin ma lihid. So marka columnkan marka laazim waxa ku qasbantaa marka inaad ka dhigto column oo eccentric ah, okay? Columnkaada marka waxa ku qasbantaa inuu noqdo qaabkan, okay? Oo footingkiisa hadhow sidaas uu noqdo, okay? Marka columnkan waa column outer ah, okay? Banaanku jiraa. Marka maadaama areadii loo baahnaa iyo areadii inta uga baahnaa uusan helaynin because of property line-ka meesha ku eg, waxa culayska la soo saari doono wuxuu ku noqon doonaa culays aad u tiro badan oo macnaha uusan qaadi karin, waayo areadii u baahnaa ma helin. Sidaa dareed marka culayska ku badan. Marka culays heavier uu qaadaa ama si kale waxaa dhigi kartaa culays eccentric. Eccentric waxaa lahaa columnka culayska ka imaanaya waxaa la rabaa footingka areadiisa inuu si isla eg dhaxda uga aado, okay? Marka dhaxda hadda kuma aadi karaba dhinacu uu ka saaran yahay. So marka maadaama dhinacu saaran yahay hadhow maxaa dhacaysa marka meeshan sidoo kale hadaad waxa soo sheegay inaa moment uu qaadayo. Momenta marka xaguu ka imaanaa. Culayska marka hadda la saaro shayga waxa dhacayso maadaama hadda pressure intuu ugu badan yahay shayga inuu qaabkan u soo qaadmo, okay? Qaabkan inuu u soo qaadmo, okay? Sababtoo ah culayska inta marka laga saaro qaybtan kore u soo kacay, okay? Sidoo kale shearkan wuu ku badan yahay hadda portionkan hadda aad ugu badan yahay shearka oo hadda inta marka culayska uu saaran yahay footingkan wuxuu isku dayaa inuu iska caabiyo, okay? Inuu isagana awood kale isaga caabiyo ayuu isku dayaa. Marka meesha shearna wuu ka imaanaa. Marka momentigaas iyo culayskaas iyo shearkaas ay waxaa la rabaa in loo gudbiyo columnka kale oo innerka ah. Marka culayska waxaa lagu qaybinaa oo lagu baahinaa oo ku dhahay footingka columnka kale uu leeyahay. Marka strap beamka does not remain in contact with soil, okay? Maxaa laga wadaa? Yacni carrada contact lama laha oo carrada ma taabanayo, carrada ma saarna. Haddii carrada uu saarnaa lahay it means carrada ayuu wuxuu u gudbin lahaa culays. So marka wax contact ah ma laha oo dhulka ma gaarayo, okay?
sidaa daraaddeed marka meeshaas waxaa ka cad in uusan u transfer gareynin wax pressure ama culays ah carrada uusan u gudbinaynin okay waxa waaye ma gaaraya yani asal shaqadiisa waxay tahay inuu columnkan iyo ma aragtay footingkan culayskii ka zaa'idka ahaa oo outbalancega ahaa iyo momentii ka generate garoobay inuu ku balance gareeyo midkan kale okay waa sababta loogu bixiyo data balance footing aan u dhehayna okay noocyo kala duwan ayaa يعني loo categorize gareeyaa ama loo kala qaybiyaa marka la fiiriyo dabiiciyan qaabka uu yaalo nooca koowaad waxa waaye yani strap beam ayaa wuxuu isku xirayaa column oo outer ah sida caadiga ah aan naqaanay column yani okay column kan oo kale hadda gees u dhaca oo dhinacaana hadda dheer okay column kan oo kale eccentric waa okay culays marka la saaro okay halkan kalena waxa ku yaalo column kale oo nadiif ah kan marka wuxuu dhacaa centerka oo kale noogu aadi okay okay so marka midkan koowaad marka wuxuu isku xiraa column oo eccentric ah ayuu wuxuu ku xiraa column kale oo concentric ah okay so marka sidaas ayuu isugu xiraa okay marka wax contact aan dhulka lama laha dad wax ka soo hadalna marka beamkan ayaa waxa la yiraahdaa strap beam okay noocaas waa nooca koowaad marka waa kan ugu badan nooca ugu badan waayo ku yiri oo markii foundationka designkiisa la joogo ee la isticmaalo waxaana lagu controlaa oo ku dhahay eccentricity oo meesha maxaa ka dhacay hadhow fiiri culayska markii halkan la soo isticmaalo pressure ka saan u noqonaa u fiirso sidaas ayuu noqonaa okay pressure ka sidaas ayuu noqonaa eccentricity ga marka lagu ilaaliyo lagu control marka halkan culayska ku badan okay culays badana meeshaas ka imaanaya si marka loo helo hadhow wax uniform ah waxa waaye beamkaas strapka la keenaa hadhow markii si oo ma aragtay uniform ah wixii dhan u wada noqdaan kana uniform oo u noqdo waxa u baahan tahay ina strap beam adeegsato okay kuwa kale markii lala barbar dhigo marka wuxuu ku yiri asaga more practical ah ya noocyo kala duwan oo waxa jiro oo strap ah sida nooca soo socdo kale okay kana marka practical ahaan kana badan oo inta badan la arkaa okay sidoo kale wuxuu ku leeyahay strap beam kan markii column kan eccentric iyo column kan markii strap beam isku xiro wuxuu ku yiri waa cost effective waaye dhaqaalahay u roon tahay okay intii la isticmaali lahaa walaxa kale oo wax lagu support gareeyo sida mass concrete yani shub in la sameeyo block dhan qayb dhan oo shub ah in la shubo oo si yani hadhow yani maxaa la dhahay loogu celiyo macna ama loogu support gareeyo okay taas tana fiican uu ku leeyahay okay oo marka hadalkan kalena wax kale ma aanay standard ahaan markii la joogo dhanka practical ama ma aragtay site-ka isaga inta badan caan ah oo kana inta badan la yaqaan nooca labaad marka waxa waaye column-kii eccentric-ga ahay ayaa markaan waxaa la isku xiraa strap beam wall okay wall ayaa markaan isku xiraa okay marka wuxuu ku yiri marka interior wall ayaa la adeegsanaa okay so marka waxa waaye column-kii eccentric-ga ahay waxa yani celinayo oo ma aragtay lagu strap beam la isku qabanaa wall okay derbi interior ah okay marka wuxuu ka wadaa macnaha mar kastaba inuu column ku dhawaanina laga yaabaa ama meesha column aad ka wada helin hadii column-ka always macnaha option-ka kale ku banaan waay ina wall isku xirto okay so marka elementiga ugu dhow ayaa markaas isku qabanay ayuu ku leeyahay waxaana fiican inuu column-kaasi noqdo reinforced concrete wall okay birta marka ka imaanado strap beam-ka ayaa waxay toos u galaysaa hadhow ama la shubaysaa wall-kan oo reinforced concrete wall-ka okay sidoo kale marka beam-kaas iyo wall-kaas isku xiritaankooda marka in la isku wada shubo la isku wada xiro waxay ku xiran tahay thickness-ka iyo birta qaabka loo nidaaminayo wall-ka ku jirto yani birta iyo thickness-ka wall-kaada qaabka loo sameeynaa iyo ku xiran tahay beam-kaada iyo wall-kaada sidii la isugu xiri lahaa okay ina si fiican u fahmay arjina waxa jira marka hadii oo column weydo column ku dhow weydo wall ama elementiga ugu dhow ayaa adeegsanaa lagu dhahay hadii marka wall-ka naftirkiisa weyso nooc saddexaad waxa jira la isticmaalo waxa la adeegsanaa marka wax la dhahayo concrete mass okay oo hadda waxaan u maleynaa inaan meelahan ku soo arkay concrete mass concrete mass kaas waxa la rabaa marka footing-kan u fiirso marka culays la soo saaro waxa jira reaction okay oo waxa waa support waa asaga markasta column-ka asaa celiyo waxa la rabaa marka mass concrete ayaa la sameynaa yani gabal dhan oo shub ah ayaa la sameynaa oo leh culays ka badan reaction-ka footing-kan okay sidaa dareed marka hadii mass-kaas la helo qaybtaas mass-ka hadii la helo waa la isku xiri karaa okay ina intaas isla fahanay ayaa rajana meelaha qaar ayaa qaabkaas yani qaba in la adeegsado aragna marka xaaladaha isticmaaleyno strap footing okay sababka koowaad marka waxa waa markii carradaada aysan lahayn awood ay ku transfer gareyso culayska uga imaanaya structure-ka yani dhismaha ama ma aragtay foundation-ka culaysku uga imaanayo awood ay ugu transfer gareyso dhulka ma laha okay yani waxa waaye culayska structure-ka iyo foundation-ka uga imaanaya awood ay isaga caabiso ama ay ku celido ma laha oo awoodeeda aad u yar okay
waxay noqonaya marka size-kiina in la ziyaadiyo outside the range. Okay, range waxa waa adiga xadka aad lahayd kama bixin kartid. Okay, sababka labaad waa markii column-kaada laga dhiso meel u dhow boundary. Okay, of the plot. Okay, yani hadda u fiirso sawirkan oo kale had qofkan dhulkiis meeshaan ku eg yahay, column-kina meeshaan u dhacay waa ujeedaa. Okay, column-kina meeshaas ayuu dhacay. Okay, marka halkaas oo kale markuu dhaco haddana waxaa lagu dhahay ma la siyaadin karo. Hadda area-dii hadda fiiri footing-kaada hadda area-diisa intaana hadda dhulkaada ku ogolaanaa. Okay, intaas hadda muuqato, laakiin intaan in lamid ah ayuu wuxuu ka rabaa halkan mana aadi kartid. Okay, so markaas oo kale waxaa ku qasban tahay inaad column-kaada corner-ka aad geysid ama meesha boundary line-ka inaad saarto kadibna strap beam aad isticmaasho. Strap beam-ka waa kan aha, markaas oo kalena waa ku qasban tahay inaad adeegsato. Xaaladda saddexaad oo adeegsanayna waxay tahay markii distance-aha laba column oo isku xiga. Okay, uu yahay very large. Okay, laba column ayaa waxay isku jiraan distance aad u fog. Okay, sidaa daraadeedna marka combined footing la sameeyana affordable ma aha oo lama awoodi karo oo economical ahaan waa laga cabsanaa. Okay, markaas oo kale maxaa ku qasban tahay column-kii halkan yaalay iyo column-ka kale oo halkan fogaa yaalay maadaama distance aad u fog u dhaxeeyo inaad strap beam aad iskula qabato. Okay, strap beam inaad iskula qabato ayaa ka habboon intii combined adeegsan lahayd, sababtoo ah combined-ka wuxuu u baahan yahay thickness fiican u baahan yahay, bir badan u baahan yahay, soo markaa waa qarash badan yahay. Okay, saaxiibayaal marka halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa. waa mahadsantihiin idil ahaantiin.